kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacada Soomaali iyo Swiss Lora oo idinkaga timaada maalin kasta oo khamiisa magaalada Tansuuriq saacadu markay tahay 2 duhurnimo ilaa 3 galabnimo maanta bishu waa 27 bisha 2014 barnaamijyadan ku soo qaadan doona idaacada tan waxaa kamid ah joornaalada Swiss ku xabay iyo qoreen iyo Soomaaliya oo dagaal culus ka socday weeyigii la soo dhaafay ayaa asna aan ku soo qaadan doonaa magaalada Maxaas oo gacanta al-shabaab ka baxday weegaan dhaxdiisa iyo magaalooyin aad u fara badan ay kamid tahay magaalada Qoryooley ayaan ku soo qaadan doonaa barnaamijka iyo gobolka Baay magaaladiisa Baydhabo oo ayna banaabaxyo culus ay ka socdaan maadaama aan soo hadal qaaday Maxaas waxaan idin soo qabanayaa oo barnaamijkan ku furnaynaa wali shaqo ay caan ku tahay magaaladaasi
meesha ciyaartaas quruxda badan kala socotaan waa idaacadda Soomaali iyo Swiss Lora barnaamijkeena waxaan ku furfuraynaa magaalada Baydhabo ayaan saddexdii maalmood la soo dhaafay barnaamij ka dhacayeen barnaamij ay VOA ka diyaarisay ayaa wuxuu u dhacayay sida tan magaalada Baydhabo ayaa maanta kacsan kadib markii maalintii saddexaad ay dhaceen dibadbaxyo rabshado wata oo lagu soo horjeedo joogitaanka xildhibaano uu ka mid yahay gudoomiyihii hore baarlamaanka Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan kuwaasoo Baydhabo u jooga sidii ay u dhisi lahaayeen maamul goboleed cusub oo ka kooban 3 gobol dibadbaxyadan waxaa dhigaya taageerayaasha maamul goboleedka cusub ee 6 gobol ee dhawaan Baydhabo laga dhisay ergeyga xogeyaha guud ee qaramada midoobay qaabilsan Soomaaliya Nicholas Kay ayaa labada dhinac ee isku haya Baydhabo waxa uu ugu baaqay inay khilaafkooda wada hadal ku dhameeyaan haddaba sida ay wax u dhaceen iyo xaaladdu imika sida ay tahay ayaa wariyaheena Maxamuud Ibraahim waxa uu weydiiyay wariyaha VOA-da Baydhabo Mukhtaar Atoosh aad baad mahadsantahay Maxamuud maalintii saddexaad ayaa mudaharaadyo rabshado wata oo ay ka dhacayeen magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay وأصير الصور في ما تنتشر أصلا الشيخ هذا إن الدنيا هذا فرق بدن أيام مداراتي سكتة غابة هي أو حفرة كالبيت المحتوى بينما كلمة قوة بين كل جري إسلام كان الشيعية الكل يقول جيران شريف حسن الشيخ هذا وأصير مدن مداراتي الشراء وما تكلم عن مجالات بينما حرمت الدول كباي إنه كذا وعمي ويقول يراه وذلك في شيء توجه هاي kaasi oo ay daawaceen ilaalada gaarka ee Shariif Xasan Sheekh Aadan sida ay u hadlayeen joogjoogyaal ku sugnaa goobta mudaharaadku ka dhacay oo ay dhabaabka hore hoyga uu ka degan yahay Shariif Xasan Sheekh Aadan magaalada Baydhabo waa gartay maxaa loo dhaawacay wiilka ilaalada maxay u dhaawaceen dadkii mudaharaadka sameeyay ayaa waxay ku dhawaadeen hoyga Shariif Xasan Sheekh Aadan ka degan yahay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay markaasi ayaa mid ka mid ah ilaalada Shariif Xasan waxa uu xaqiijiyay dadkii mudaharaadka sameeyay mid ka mid ah dhalinyarada mudaharaadka soo qaadanayay ayaa ku dhaawacmay xabadda uu ku yimid askarigaasi xaaladda magaalada ee guud hadda waa sidee xaaladda magaalada guud weli waa ay kacsan tahay waxa wararka qaar ay sheegayeen in xildhibaanada dhinaca magaalada Muqdisho ay aadayaan laakiin qaar ka mid ah xildhibaanada aan doorda u leeyahay gaar ahaan xildhibaanada ku sugan hodelka Bakiil oo iyagu ku howlanaa sida maamulka saddexda gobol iyagu waxa ay sheegeen inaysan u socon dhinaca magaalada Muqdisho isla markaana waxa ay xildhibaanadaasi ay sheegeen inay dhamaystirayaan dhismaha maamulka saddexda gobol Baay Bakool iyo Shabeellaha Hoose waxay sidoo kale muujiyeen marka ay dhisaan maamulkaasi inay dib markaasi ugu laabanayaan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waa gartay Atoosh ilaalada Shariif Xasan waa kuwe ma amisom ayaa ilaalinayso mise ilaalo qaas ayuu wataa Maxamuud ilaalada Shariif Xasan waxay isugu jiraan ciidamo kuwa amisom iyo sidoo kale ciidamo dowladda federaalka Soomaaliya ka tirsan wiilkan isagana waxaa dhaawacay ciidamada Soomaalida ee ilaalinaya Shariif Xasan Sheekh Aadan waxaa kaloo cusub mudan in wiilka uu ahaa mid kuwan calanka koonfurta Soomaaliya isagoo markaasi ku sugnaa meel ku dhow guriga Shariif Xasan Sheekh Aadan waxaana saaka cabsi laga qabay mudaharaadayaasha ay galaan ama jiraan ilaalada oo ay galaan guriga uu ka degan yahay ama hoyga uu ka degan yahay Shariif Xasan magaalada Baydhabo Shariif Xasan iyo maamulka 6 gobol ah ee looga dhawaaqay meesha wax wada hadal ah ma u furmeen si loo qaboojiyo xiisada meesha ka taagan maxamuud wax wada hadal oo u furmay ma jirto sidoo kale ma muuqato saansaan ay ku wada hadli karaan labada dhinac waxaana la dareemayaa in labada dhinac ay wadaan dulf colaadeed ay isku hubiysanaya dadka magaalada Baydhabo ayaa cabsi waxay ka qabaan in iskorimaadyo ay ku dhex mari karaan labada dhinac xilli kasta gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta Baay inkastoo wararka qaar ay muujinayaan saraakiisha amisom inay amar ku siiyeen labada dhinac inaysan wax xabada basrada ku ridi karin oo aysan amisom u dul qaadanaynin sida ay xaqiijiyeen saraakiil ku dhow amisom wariyaha VOA-da Mukhtaar Atoosh oo khadka telefoonka ugu rameeyay Maxamuud Ibraahim cali halka soo socotana walaanta Soomaaliga idaacadda VOA halkaad barnaamijkaas kala socoteen waa idaacadda Soomaali iyo Swiss Lora oo idinkaga timaada maalin kasoo qamiisa magaalada Tansuuriq maanta ay bishu tahay 27 bisha 2014 maadaama
magaalada baydhabo hees ay caan ku tahay ayaan soo qaadan doonaa iyadani haddana waxaan idinku duweynaa barnaamij oo BBC ka diyaarisay qabsashadii ciidamada dowladda ay si nabadgelyo ay ku qabsadeen magaalada Maxaas gobolka Hiiraan ee Soomaaliya oo tan iyo daraad buu ku jiray oo u dhaxaya taageerayaasha shirarka iska soo horjeeda oo midi horey u dhistay madax iyo maamul goboleed midka kalena iminka uu qorsheynayay inuu madaxdii magacawdo ayaa iminka arintoodii waxa soo kala dhex galay ciidamada midowga Afrika ee magaalada Baydhabo jooga warkaas iyo dagaalkii maanta laga soo sheegay deegaanada la kala yiraahdo ceel helay iyo ceel qooxle oo u dhow degmada ceel buur ee gobolka galguduud ee Soomaaliya dagaalkaas waxa u dhaxayay ciidamada midowga Afrika ay horkacayaan iyo xarakada shabaab ujeedadana waxa lagu sheegay sidii ceel buur iyo deegaanada gobolada dhexe wali ku arsan gacanta shabaab loogala wareegi lahaa shabeellaha hoosana xaaladda magaalada Qoryooley ayaa degan sida uu soo sheegay wariyaha BBC oo magaaladaasi joogay tan iyo markii lagala wareegay shabaabka oo ay u gacan gashay ciidamada midowga Afrika iyo kuwa dawladda Soomaaliya haddaba wariyaha BBC da magaalada Muqdisho Ibrahim Maxamed Aadan ayaa toos ugu jira khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho marka hore waxaan weydiinayay halka ay ku dambeeyeen dagaaladii gobolada dhexe maanta ceel helay iyo ceel qooxle iyo maadaama iminka aasku sii madoobaanayo xilliga Soomaaliya wax natiijo dagaaladaas Ibrahim عبد النور واد ما هتنتهي سيدات شكتيبا ماتا دورنيمادي وحاو دقال علس كدعي انتو دحيس تلوين كعال هلي القوحلة هب علس ايا لاديك سني دادك ديقان مرهرة اي ساقتكين تلوين كدقالدو اي كدعيين دوركي مالمضي قدن بي عيدا مدو دونيين انكوسي سقان magaalada istiraatiijiga Albuur halkaas oo dagaalyahanada al-shabaab ay maamulayeen dhowrkii sano ee la soo dhaafay wararka laga helay deegaanka dadkii deganaa tuulooyinka ku dhow
way isaga tageen halkaasi xaaladdu waxaad moodaa inay xoogaa soo yara deganaanayso waxaana la sheegay in goobtii uu dagaalku maanta ka dhacay hadda ciidamadu ku eg yihiin iyagoo kusii dhowaanaya degmada ama tuulada Ceelqooxle la yiraahdo dhanka kale lama hayo khasaaraha dhabta ah ee dagaalku dhaliyay maxaa yeelay aagga lagu dagaalamayo waxa jooga ciidamada dagaalamaya oo kaliya saraakiisha ciidamada dawladda aan taleefanka ku wacay dhammaan way suurtagal weysay inaan helo dadkuna aad bay uga fogaadeen goobta hadda ama maantaba uu dagaalku ka dhacay Cabdinuur oo dhanka kale waxa degan magaalada Maxaas oo saaka ciidamada dawladdu ay si nabad ah kula wareegeen iyo kuwa midowga Afrika kadib markii xalay al-shabaab ay magaaladaasi isaga baxeen magaalada Ceelbuur hadii qabsadaan ciidamada dawladda waa meel istiraatiiji u ah oo al-shabaab waxa kale oo aan barnaamijka ku soo qaadan doonaa qaybihiis dambe waxaabihii ay ka qoreen joornaalada Swiss-ka joornaalada Swiss waxaabihii ay qoreen laakiin heestan ku yaranasta heestii aan idinkugu talagalay oo dhaantada ahayd ay caan ku yihiin gobolada xilligan ay dagaalada ka socdaan wataan quruxda badan meeshaad kala socotiin weli tole waa Somali Swiss Lora raadiyo Somali Swiss Lora oo idinkaga yimaada maalin kasta oo qameysa magaalada Tanzania